السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan akhyaaray meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadaan ku talagalnay maanta sabtiga waa barnaamijkeena habeenimo waa barnaamijkeena kusoo gudbinayno macluumaadka wararkii ugu waaweyn ee dhacay saacadii la soo dhaafay waa 12 bisha Oktoobar sanadka 2024 qodobada barnaamijkan idinku hayno waxaa kamid ah ceebtii weyneed ayaa la soo sheegayaa inay haysato carabtii imaaraadka ciidan uu leeyahay ayaa waxaa la soo sheegay inay ku jiraan gudaha Gaza iyagoo la shaqeynaya ciidanka Israa'iil xog cajiib ah oo arinta laga keenay ayaanu barnaamijkeedii kula wadaagi doonaa waxaa kale barnaamijkan idinku hayaa ciidamada Israa'iil ee ka dagaalamaya koonfurta Lubnaan ayaa la weydiiyay su'aalo ku saabsan dagaalka ka waran Lubnaan iyo midkii Gaza kee idin roon waxay ku jawaabeen ayaan idin hayaa oo aad u xiiso badan waxaa kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa Kataibul Qassam oo la sheegay inay mar kale cashar u dhigtay ciidamada Israa'iil ee ku sugan waqooyiga Gaza gaar ahaan Jabaaliya saacadii ugu dambeeyay Jabaaliya warar waaweyn oo ka soo baxay ayaan idin la wadaagi doonaa waxaa kale barnaamijkan hayaa iyadoo ciidii ugu weyneed Israa'iiliyiintu ay u dabaaldegayaan maanta oo la yiraahdo Ciidul Ghufraan ayaa malaayiin waxaa la sheegayaa inay godadka dhulka hoostiisa ah ciidooda ku qaateen haddaba warbixinadaasi iyo wixii kale warar soo kordhay waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena habeenimo Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynaya inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahinta boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bangi nagaad organics Soomaaliya waa rugta rasmiga ah ee laga heli karo alaabaha dabiiciga ah ee la isku qurxiyo rag iyo dumarba rugtu waxay haysataa aqoonsi caalami ah dhammaantoodna waxay ka samaysan yihiin biyada dalkeenna ka baxda oo si dhowran loo soo saaray waxaad ku heli kartaa alaabaha nagaad jumliya tafaariikh xarunta dhexe ee nagaad organics waxay ku taallaa Muqdisho gaar ahaan Taleex Mool dhabarka dambe ee suuqa Xayaat ee Taleex xarunta labaad ee Muqdishona waa airportka Aadan Cadde meel kasta oo aad joogto waxaad ka iibsan kartaa alaabta nagaad sida website-yada shirkadda Amazon, eBay, etc. iyo Carrefour wixii faahfaahina fadlan kala xiriir cinwaanada shaashada mahadsanid ku nagee naftaada alaabta nagaad organics kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo mawduucyada aanu barnaamijka ku hayno waxaanu ku bilaabaynaa ciidanka Israa'iil ee ka dagaalamaya xilligan Lubnaan koonfurteeda ayaa qaar kamid ah waxaa la weydiiyay su'aalo ku saabsan sidee u aragtaan dagaalka halkan ka socda iyo dagaalkii aad ku soo gasheen Gaza kee daran labada dagaal iska caabintu tee xoog badan sidee wax u jiraan miidiyihii Israa'iil ayaa wareysanaya askartii waxaa leeyahay sidee wax u jiraan xaaladiina ka warrama haddaba marka warbixin cajiib ah oo laga qoray sheekadaas ayaan idin la wadaagi doonaa waa tahay haddaba marka waxay leeyihiin warbaahinta iyagoo ka hadlaya ciidamada Israa'iil ee iyagu markaa isbarbar dhigaya
sida ay wax u jiraan dagaalka ka soconaya Gaza iyo midka xuduudda Lubnaan. shabakada la yiraahdo CNN ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa maanta Sabtida waxay sheegtay in ciidamada Israa'iil ee ka dagaalamaya sida ay tiri dhanka waqooyiga ee xuduudda Lubnaan inay sheegeen dagaalka sida ay u arkaan iyo xaaladiisa. waxay leeyihiin dagaalkan ka soconaya koonfurta Lubnaan aad ayuu uga adag yahay marka la barbar dhigo dagaalkii kale ay galeen. haddaba ciidamada Israa'iil waxay u sheegeen CNN-ka oo ah telefishin Mareykanka laga leeyahay in markaa ay tahay dagaalkan dhibaatadiisu buuraleyda oo ay ku jiraan Xisbullah. waxay sheegeen dagaalyahanka Xisbullah inay ka faa'iideysanayaan dhulka buuraha ah ee xuduudda ah, wayna adagta ayay yiraahdeen in si fudud halkaa looga saaro. waxay sheegeen in ciidankoodu ay haystaan Xisbullahida hub ka awood badan kana horumarsan hubkii ay horey u haysteen kooxaha kale sida Xamaas oo kale dagaaladii ay la soo galeen. haddaba waxay soo kala hayaan macluumaadyo ku saabsan sirdoon marka weerar lagu soo qaadayo iyo qaabka ay wax yihiin ayay la soconayaan. sidaa daraaddeed waxay qareen ciidamada Israa'iil in ciidanka Xisbullah ee ka dagaalamaya xuduudda Lubnaan ay aad uga awood iyo hub badan yihiin ciidankii ay hore ula soo dagaalameen ee Xamaas. waa tahay marka sheekadu marka halkaa marayso waxay leeyihiin askartii CNN-ka iyagoo la hadlayay Mareykanka telefishinkiisa oo Al Jazeera soo bandhigtay halkan mushkiladeeda waxa way leeyihiin waa buuro waayeeleen buuro waaye dheen xuduudka. buurahaas waxaa ku jira marka dhibanka Xisbullah si kasta haddii loo duqeeyo waxba lagama qaadayo. haddana istikhbaaraadkooda waa horeeyaayo marka aan isa soo aruursanayno soo galayno way la socdaan, inta la soo baxaan waxoodayna garaacayaan. hub ahaanna way sareeyaan, awood ahaanna way sareeyaan, maashana waa buuro, sirdoon ahaanna way horeeyaan, markaa soo weerareen way la socdaan. marka waxay leeyihiin xogaa dhulka iyo istaraatiijiyada juqraafiga iyo ayaa sahlanaa inaynu Gaza markiiba galno, laakiin halkan galideeda ayaaba la isku haystaa ayay leeyihiin. haddaba marka sheekadu marka halkaasay maraysa. warbixintaasina waxaa laga soo xigtay telefishinka CNN ee Mareykanka laga leeyahay. waayahay markan waxaanu u gudbaynaa Israa'iiliyiintii. waxaa la leeyahay maanta waxay qabeen ciiday qabeen. ciidda Ghufraana la yiraahdaa, dambi dhaafka ciidda ay u yaqaanaan waaye. waxay soo bilaabataa shalay oo kale galabkii ilaa maanta oo kale waa la ciidaa 10 maalmood ay socotaa. waa maalmaha diinta Yahuudda ugu maaragtay qiimaha badan oo ay leeyihiin waa la isu dambi dhaafaa. ciidul Ghufraan waa ciidda dambi dhaafkay ku leeyihiin. marka ciiddaas si nabadgelyo ay ku qaadan jireen. nin walba waxa waaye si nabadgelyo isagoo magaaladiisa jooga gurigiisa jooga ayuu ciidaysan jir. laakiin hadda waxaa la soo sheegayaa ciiddu sidii hormaa milyan in ka badan Yahuuda ayaa dhulka hoostiisa godadka ku qaadanaysa ciid. meeshay ku ciidayaan waa ooyayaan. marka waxay leeyihiin ciideeni dhulka hoostiisa ku qaadanayna. sababtoo ah markay banaanka soo baxaan mar walba waxay maqlayaan siiriga digniinta waa la soo galayay kala cararaay ma dhankan xuutiga ma dhankan ciraaqiyiinta Xisbullah ee maxaarto Xamaas meel kasta laga socdaa. marka sanadkan waxa leeyahay sanadkii ugu xumaa soo mara ayay ahayd dadka Yahuudda ah oo aysan weligood arkin ciid dhulka hoostiisa lagu qaado oo lagu ciidayo. caruurtii dumarkii wixii oo dhan dhulka hoostiisa ku jiraan. haddaba markaan idintu soo warbixinadii ugu dambeeyay laga qoro sheekadaas waxaa la sheegayaa in ka badan 1 milyan oo qof oo Israa'iiliyiin ah inay galeen godadka dhulka hoostiisa ah halkaana ay ku ciidaysanayaan. joornaalka la yiraahdo Yedcood Axranood ee ka soo baxa Israa'iil ayaa sheegaya in ka badan 1 milyan oo qof inay ku ciidaysteen dhulka hoostiisa. sababtuna waxay tahay markay soo baxaanba
waxay la kulmaan digniinaha dhawaqa sheegaya in weeraro ay soo socdaan. ilaa 80 magaalo oo Israa'iil ka mid ah ayaa waxaa la sheegayaa in markaasi ay dhibaatadaas ka jirto oo dadka dhulka hoostiisa guryaha inta ka soo baxeen ayay dhulka hoostiisa ku jiraan. magaalooyinkaasna waxay ku yaalaan dhanka waqooyiga iyo bartamaha Israa'iil ayay ku yaalaan. haddaba ciidan la yiraahdo ciidul Ghufraan ayaa iyadu waxay soo bilaabataa xilliga galabkii Jimcaha waxayna socotaa ilaa Sabtida ilaa 10 maalmood. yuhuuddu waxay markaa sameeyaan maalin la yiraahdo maalmaha dambi dhaafka, waxaana ay sheegaan inay sanadka tahay maalmaha ugu sharafta badan 10 maalmood ee xilligan oo kale sanad walba oo ay xusaan oo ay yiraahdaan waa yawmul Ghufraan ama maalintii dambi dhaafka. marka ciidoodii sanadkan saasay ku qaateen 80 magaalo dadkeedii dhulka hoostiisa ku carareen, maar walba siiriga yeera mushkiladaas iyaguna haysata. marka dhibaatadu meel walba marka ka taagan tahay iyaguna dhibkaas hayst. haddaba waxaa noo soo socda sheeko la yaab leh oo ku saabsan nimankii imaaraadka ahaa inay ciidan u direen Gaza oo waliba caawinaya Israa'iil. waa la yaab xogtaas markay soo baxday dadkii oo dhan afkay gacmaha saarteen. sidee wuxuu jiraa nimanka imaaraadku ah sidee wax ka yihiin alle. haddaba warbixin faahfaahsan oo arrintaa laga qoray way noo soo socotaa, laakiin markan waxaynu u gudbaynaa magaalada Gaza wixii ka dhacay saacadihii la soo dhaafay. saa la socotaan dhowr maalmood waxaa dagaal ka socdaa Jabaaliya. aadaa la isu galay meeshaas ciidanka Israa'iil ee soo galay iyo muqaawamada waa la isku riiqmay, si fiican la isu garaacay. haddaba saacadihii ugu dambeeyay maanta dagaal dhacay waxaa war soo saaray Kataa'ibul Qasaam. Kataa'ibul Qasaam waxay yiraahdeen garabka militariga ee Xamaas in markaa ay qarxiyeen miinooyin ay dhulka dhigeen iyagoo la beegsaday ciidan Israa'iiliyiin oo ilaa 15 askari ah. waxayna ku weerareen dhinaca galbeed ee deegaanka la yiraahdo Jabaaliya. waxaana sidoo kale ay bartilmaameedsadeen 3 ka mid ah taangiyada Israa'iil ee halkaas soo galay. waxaa sidoo kale weeraradu ay ka dhaceen Gaza dhinaceeda iyo Rafax intaba dagaal ka dhacay. sidoo kale Rafax waxay sheegeen Saraayal Qudus inay markaa iyaguna weerar ku qaadeen ciidanka Israa'iiliyiinta oo ay qarxiyeen mid ka mid ah gawaaridii gaashaanaa ee soo galay halkaas dhinaca waqooyiga Gaza. waxay sidoo kale sheegeen inay qarxiyeen miinooyin kuwa waaweyn ah oo halkaa ay ku aaseen oo markaasi la yiraahdo nooca Thaaqib la yiraahdo. Al-Qasaam dhanka kale muqaatiliinteeda ama dagaalyahanadeeda waxay sheegeen inay qarxiyeen miinooyin kale oo ay markaa u dhigeen ciidamo lugaynaya oo kuwa Israa'iiliyiinta ilaa 15 gaaraya. haddaba waxay doonayeen inay galaan xaafadahaas, laakiin waxaa la sheegay inay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay ciidankii Israa'iiliyiinta ee la beegsaday. waa la ishayaa halkaas iyaguna duqeyni ku wadaan, shacabkii waa leynayaan, iyagana waa la leynayaa. marka meeshii Jabaaliya ahayd way uga furan tahay halkaasuu maraa. dhanka kale xuduudda Lubnaan maanta dagaalo badan ma jirin. Xisbullah kaliya ayaa war soo saartay oo leh isku dayaa jiray maanta ay ku doonayeen inay ciidamo ku urursadaan, laakiin waa garaacnay oo waa duqeynay. dhanka kale Israa'iil laakiin waxay aad u duqeynaysay magaalooyin ku yaala koonfurta Lubnaan halkaas oo ay ku tuhmayso in Xisbullah ay xiriir la leeyihiin. qaybta ugu muhiimsan barnaamijka way noo soo socotaa. ciidan imaaraadku leeyahay oo ku jira Gaza oo la soo arkay. ceeb uma dhinna maanta carab xilli Nicaragua oo wadan ku yaala America uu sheegay in ay xiriirkii diblomaasiga u jareen, xasuuqa Falastiin loo geysanayn ay ka caroodeen, iyadoo imaaraadkuna la leeyahay ciidankiisii ayuuba Israa'iil u diray. sheekadaasi cajiibka way noo soo socotaa, balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadar xayeysiis. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Parklands
jidka 6 avenue city park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba iminka waxaa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo, waana qiimo dhimis 50%. kala xidhiir telefoonada waalidiinta magaalada muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh. waxaa laga furay wadada Soddonka Ex Hotelkii Caamir macahad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy. waxaa jooga macallimiin aqoontoodu sareyso, dibaddana lagaaga keenay. cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga International GCSE-ga. shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay, sidoo kalena uu jaamacado dunida uga heli karo. waxa loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan. sidoo kale fursadan waxa iyana ka faa'iideysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sareyso. haddaba isqoristu way socotaa, hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy. waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka. dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad. dad ayaa habeenkii oo dhan shaqayn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya. laakiin arrinta la yaabka leh ee wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqaynaya hay'ad u dhaxaynaysa aanay jirin, taasoo macnaheedu yahay qofku lacagtiisii oo buuxda inuu qaadanayo. la xiriir faahfaahin dheeraad si aad u heshid www.Sana Carers. kulan wanaagsan mar kale asxaabay, waa barnaamijkeeni habeennimo. maanta waa Sabti, taariikhduna waa 12 Oktoobar. haddaba qaybta ugu dambaysa ee barnaamijka ayaynu maraynaa. arrinta aynu kaga hadlayno qaybtan waa arrin aada cajiib u ah. barihii bulshada carabtii waxaa lagu jarjarayaa bin Zayed, Maxamed bin Zayed, ninka madaxda ka ah wadanka Imaaraadka, oo la leeyahay waa camiil tabadhilif waayay ku leeyihiin oo u adeega nimankaas. sababtoo ah waxaa la keenay warbixin la leeyahay askar Imaaraad ah ayaa Gaza lagu arkay. weliba kaaga daran warbixinta waxa soo helay waa suxufiyiin reer galbeed ah oo si dhuumasho ah ku galay halkaas. markay ka soo tageen Israa'iil ayay warbixintii qoreen. warkan marka waxaa tabisay gabar Faransiisa oo wariye ah ayaa tabisay oo dhahaysa anaa soo arkay ciidan Imaaraad ah oo la shaqaynaya kuwa Israa'iil ee Gaza dagaalka ku haya. way caawiyaan dhageysiga telefoonada, adeegsiga dadka la rabo in maaragtay la weeraro. waxaasoo dhan waxaasay ka caawiyaan caafimaadka, gurmadka, waxaasoo dhan ka caawinaya. waa ciidan Imaaraad ay leedahay. gabadha journalistaha ee Faransiiska waxay leedahay anaa soo arkay, anaa tegay Gaza, anaa la kulmay, anaa arkay. weliba waxay ku marmarsiyoonayeen tiri anoo arkaya inay ciidan yihiin, waxaan ka shaqaynaynaa samafalka iyo arrimaha gargaarka. maxaa samafala? askariyaaba tahay meesha ma samafal nin labisan oo qori wataa samafala? waxaasaa jiray tiri gabadhaas suxufiyadda ah. haddaba wargeyska la yidhaahdo Wadan ayaa wuxuu qoray taqriirka gabadhaas Faransiiska ay diyaarisay. wuxuu leeyahay tasriix mufaaji ah ayaamiin, waxyaabo la yaab leh, warbixin la yaab leh ayaa la helay. waxay qarxisay gabar Faransiisa, war weyn ayay qarxisay oo ku saabsan in ciidamo Imaaraad ah si sir ah ay ku joogaan Gaza, ay joogaan halkaas ay ku dhuumanayaan. waxayna tiri ciidankaasu waxay ku marmarsiyoonayeen inay yihiin kuwo gargaarka ka shaqaynaya oo la shaqaynaya hay-adda bisha cas ee Imaaraadka ayay ka shaqaynayaan. haddaba warbixintan gabadha journalistaha ay soo saartay Faransiiska ah waxa uu leeyahay journaalka Wadan in markaa ay muujinayso sida ay muqaawamada
falastiiniyiinta ah loo dhibaateynayo oo macluumaadkooda iyo dhankooda iyo waxa dhan iyo israa'iil lagala shaqaynayo. waaye marka gabadha marka journalistaa waxay kaloo warbixinta gadaal uga daraysaa oo leedahay imaaraadku mar dhaweyta ayay ahayd suudaana ku dheganayd. suudaana waxay lahayd war nimanka kanu waddankeena hanala ka qabto ilaa UN-ka ka dacweynaysa mucaaradkee hub nagu siisaa waddankeenay burburisay waxa khartuum burburiyey jaamacadaha naga burburiyey waxa dhan waa iyada. haddana maxay leedahay gabadha Faransiiska Gaza anaa nadartu dhahay ciidan imaaraada oo dhex taagan oo halkaa jooga oo la jooga kuwa Israa'iiliyiinta ah. marka waa sheeko marka cajiiba oo maartay aad looga hadlayo hadda warbaahintii carabta oo dhan way ka hadlaysaa. marka barnaamijkayga habeenimo intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa macluumaad iyo warar ku xirnaada ku saabsan xaqiiq ah oo aanu mar walba idiin soo gudbino halka ay ka yimaadeen. laagaray barnaamijka oo share garay baad nagu cusubtaan subscribe saar YouTube-ka Facebook-na follow garay inta aan markale barnaamijka lamid ah ku kulmayno nabadgelyo.